ciidamada ammaanka Mareykanka ayaa xiray askari hore oo ka tirsanaa ciidamada koofiya cagaarta Mareykanka Michael Tyler iyo wiilkiisa Peter iyagoona ku eedeysan inay gacan ka geysteen baxsashadii maamulihii hore ee shirkadda Nissan Carlos Ghosn ayaa si la yaab leh uga baxsaday dalka Japan. ugu horreyn waa kuma Michael Tyler waa Amerikaan caddaan ah oo jeclaa ciidamada kuna biiray ciidamada gaarka ah ee Mareykanka. howlgallo badan oo dunida ka dhacay ayuu qayb ka ahaa. sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa askartii Amerikaanka ahayd ee la geeyey dalka Lubnaan xilligii dagaalkii sokeeye ee dalka. sanadii 1984 ayuu ka tegay ciidamada Mareykanka waxa uuna samaystay shirkad gaar ah oo amniga qaabilsan. mar kale ayuu ku laabtay ciidamada isagoo FBI-da Mareykanka kala shaqeeyey ka hortagga maandooriyaha iyo lacagaha been abuurka ah. balse arrinta aan ka hadli doonno ayaa ah sida uga qayb qaatay baxsashadii Carlos Ghosn. sida ay sheegtay majalladda New York Times, muwaadiniin u dhalatay waddanka Lubnaan ayaa isku dabariday oo isku xiray Carlos iyo Michael Tyler si looga soo saaro Japan loona geeyo Lubnaan. si la mid ah warbaahinta Japan ayaa sheegtay in Michael Tyler uu ahaa ninkii lahaa farsamadii uu ku baxsaday Carlos Ghosn. in la qorsheeyo arrintani ma ahayn mid sahlan, waxaana la qorsheynayay ku dhowaad bil. kooxda howlgalkan fulisay ayaa 20 jeer u safartay dalka Japan si ay u soo eegtaan daldaloolada aeroboortka Osaka. markan waxaa la gaaray wakhtigii fulinta qorshaha. Carlos ayaa laga soo saaray daartii uu xabsi guriga ku ahaa iyadoo loo geliyey maskarada wejiga iyo koofiyad, waxaana halkaa ka soo kaxeeyey Tyler iyo nin kale oo la sheegay inuu u dhashay waddanka Lubnaan. waxay tareen u soo raaceen Osaka waxayna degeen hotel u dhow aeroboortka. intaas kadib Carlos ayaa la dhex geliyey sanduuq weyn oo loogu talagalay mikrofoonada waaweyn, waxaana sanduuqaasi loo yeelay daldaloolo hoose si uu uga neefsado. waxaana la saaray dayuuraddii iyadoo aan la baarin. dayuuraddii ayaa duushay ilaa ay soo gaartay aeroboortka Ataturk ee Istanbul. si aan looga shakayn ayuu Michael Tyler halkaa ugu haray. diyaarad gaar ah oo Turkish ah ayaa 45 daqiiqo kadib ula duushay Lubnaan, si gaar ah madaarka Beirut. haddaba sidee lagu ogaaday magaca Michael Tyler? laba qof ayaa magacyadooda laga helay liiska rakaabkii diyaaraddii ay soo raaceen, waana isaga Michael Tyler iyo ninkii kale ee Lubnaaniiska ahaa. waxaana laga waayey magaca Carlos Ghosn. saxaafadda Turkiga ayaa sheegtay in la helay sanduuqii lagu soo qariyay Carlos.